Okay, bismillahi rahmaani rahiim. Chapter 16 waa chapterkeena ee maadada international business global operations and supply chain management. Kanna waxa waaye maadada waxaa soo qaadatay semesterka hore dhaho operation management soo ma soo 4 sano inuu dhigaa malayna soo ma isla maadadaas international waa that's why maxaa ku fahmay maadadan waxay ka kooban tahay international businesska MBA di aad soo qaadatay oo dhan ayadoo loo sameeynayo dadana revision qaabka loo soo baxayo markii laga hadlayo international business supply chain and logistics na imaatid shayga ugu horeeya madaxa ku soo dhacay maxaa waaye waa shaqaale dibadda laga keeno outsourcing alaab dibadda laga keeno business dibadda ka dhaco waa hiring waa dad in la shaqaaleysiiyo to perform inay ku qabtaan shaqo some of the non core activities shaqooyinka muhiimka maahana and decision making in the company value chain rather than having the company and its employees continue perform those activities shaqaale ku qaban lahayd markaan joognay Pakistan iyo India waxaan qaban jirnay anaga iska dhigayna shirkado Mareykan ku yaala waxaa jirta wax la call center dadkaas Ingiriiska aad u yaqaanay Soomaa qofkaan habeenkii loo shaqeynaa firaaqo waay saddexdan bilo fasax waa shaqeynaa caawna soo jeeda call center efel shirkado iska dhiga marketing tele marketing wal call center wala kun wiilo yar gabdhi wiilo soo Pakistaaniin ama Hindiya qol lagu soo xiraa markii qolka lagu soo xiro maxay qabanayaan waxay qabanayaan hal shay kaliya qabanayaan maxaa shay ay qabanayaan waxay dadkaasi wacayaan shirkada hadda masjid hormuud masjid xayisiinta soo dadka markaa kood waayo hore masjid xayisiinta ka SMS ma jiro mobile ma jirin maxaa la sameeyay taleefankaaga la soo dhacaa qof soo wacay hello assalaamu calaykum ha shirkad hebelaayo waxaan haynaa qalajiso fiican furniture fiican shaqaas maxaa la tele marketing shaqaale Mareykan jooga diirada lacag badan ku qaadanayaan 10 shaqaale oo Mareykan jooga lacagtii ku qaadan lahaayeen qofkaana ku qaadanaa managing global supply chain ku isbedelay components outsourcing iyo everything ma iska jiray waa isbedelay marka wixii isbedeleen maxaa la sameeynaa marka let's understand this chart supply chain network waa example American laptop company shirkadaas oo shaqeeyaan shaqada koowaad oo activity-ga design-ka ah shaqadaas intee ka dhacaysaa waxay ka dhacaysaa Korea ama waxay ka dhacaysaa Taiwan ama waxay ka dhacaysaa China laakiin design-ka intuu ka dhacaa Mareykanka balaanka qorshaha ku dhacaa Mareykanka laakiin alaabta isku aruurinteeda components-ka intuu ka dhacaa Asia isku xirxirka intuu ka dhacaa China beeceeda intuu ka dhacaa Mareykanka marketing intuu ka dhacaa Mareykanka iyo Europe ka dhacaa ma fahanteen macaamilka qofka la hadlaayo oo dib loo soo celinayo Mareykanka iyo India adduunka loo qaybinaa marka example-kan waxa waaye mobilka iPhone design-kiisa iyo qorshihiisa xagee ka dhaca Mareykanka ka dhaca shirkadda Apple waa shirkad Mareykan Soomaan isku xirxirka iyo isku aadinta iyo xagee ka dhaca China ama Taiwan Soomaan markii la keeno marketing hadda mobile daarata xafiiska emailada aad diraysid inta laga soo jawaaba HQ xagee joogtaa Mareykanka joogtaa dadka dib looga iibinayo xagee joogan Asia iyo Africa barnaamijka noocaas maxaa loo yaqaanaa waxaa la dhahaa global supply chain isku xirkaas oo dhan ayaa la dhahaa maxaa dadka hadda maanta fiiri waxa dhib ka taagan yahay oo dadkii fahmi la'ayin procurement iyo logistics iyo supply chain dadka waa fahmi la'ayin yaa noo sharxi karo farqiga u dhaxeeyo أنا إذا شرحه procurement وحواي قيبته هراء أو components كهراء أو سو يبسش هذا هراء outsourcing شركات department كه هذا أنا وكل شركة ممكن شركة كذا وحلينا حفيظ ده procurement وحوي ما وحوي سوق كذا purchasing وحوي سوق كذا logistics محوصة ما يا بابورتا يوحياها صعود اسكحرة لكن supply chain محقق بالسنة وحول لا شقيا قلنا marketing كان ولا شقيا oo asaa alaabta u geey meesha ee asaa la gado qaybta qolada alaabta soo gadanaysa ma la shaqeeyaa so is the whole connection of the organization supply chain marka supply chain ki yaray kan maxaa waaye asagoo ah global adduunka waxyaalaha ugu lacagta badan hadda laga shaqeeyo wax kamid ah global sourcing arrangement any of the following arrangement can provide firms with a foreign products
wholly owned service dir maxaa kamid ah might be established in country with low cost labor to supply components to the home country brand or to may produce a product that either is not made in the home country or is of higher quality. Of overseas joint venture established where labor costs are lower or quality higher than in the home country to supply components into the home country. marka barnaamijkan wuxuu yahay barnaamijkan waxaa laga wadaa shirkadaha caalamka markii alaabta soo gelinaysa dhowr xabaa loo kala qaadaya ayaa hore markii businesska aan qaadanayna international businesska maxaa u kala qaadnaa cinwaanka jabtarkaas ma xasuustiin entry mode casharka jabtarka marka hore qaadan waa qaab shan qaab oo business oo international business loo sameyn karo waa adoo joogto adaa lagaa rabo kow muxuu ahay waxaa ka xasuusta shak business waxaa rabtaa you want to start international business what kind of modes your options you have meeqa option leedahay marka hore labaa loo kala qaadayo two options loo kala qaadayo kadib si kala baxaya laba option hore sheega horta yeah mid adiga lagu leeyahay equity muxuu ahay wholly owned wax lagu leeyahay imida wax lagu lahayn hay midka lagu lahayn caan dhowr xabba ku jirto maxaa kamid ah export import franchise wax sida Soomaaliya kan kale maxaa kamid ah joint venture iyo waxyaalaha soo sidoo kale waa hadda for example shirkadda Apple marka ay rabto inay sameyso global arrangement maxaa la isku aadinaas maxay u dhici kartaa waxay ku dhici kartaa in shirkadda China ayada ay la wareegto oo gadato in heshiis la gado alaabta ay soo gatiraan iyo in ay shirkad furato ayada wholly owned ayada bas kalaba brand dhismay sameeysan shaqaale ayada keensanayso ama qolo furneed ay leeshiineen ama maxaa kala sameey karaa waxyaalaha kala sameey kara maxaa kamid ah contract la gali kara waxyaalaha soo dhan maxaa waaye waxyaalaha contract shay macna 15 daqiiqo nusuk xeer nusuk minutes أنا سوى إن شاء الله مرك independent overseas manufacturer كل ده بمحاول شركات كمدح بنان وحنوان logistics managerial شغل فوضى associated with movement محوكي ماتا of material such as raw material work in progress شغل يروى لكن يا علي أباه يا واي supply chain كواي حتى شركات سماها اسكو قصير hormuud waxay bixi supply chain sometimes waxay bixi logistics mid kale waxay bixi procurement wixii waa isku qasayeen wada saxsan malaha marka ina ogaanaa we must know eragaas qofku iska qasnay maanta jaanis ay ku faantina leedin iyo manufacturer hadda adinka albruj logistics ma leedihiin supply chain ma leedihiin mas procurement leedihiin sidoo kala sareeyaan ay ma kala madax banaayeen oo imaadaan very good yeah مجوج مياه ما شاء الله اوكي بلانينج شقه كستو لو قبنا هديتها ماركتنج هديتها فاينانس wax kasta maxaa ugu horeeyo planning always waa idin sharxay new plan ka sameeyay you must design waxa waa inay ku cadiyeen without planning wax kuma suurta gali karto the labor trained experience reason ba shaqaala wax dhan inay ku cadiyaan raa everything وإن أكتر مش معك جت سبلاي جينك شيء قومي سبحان الله وحارتها إن أدي شركة عرفك أنت وضمات لبعتك جت وكله سومالي موسك رقيس واي ولا قصة ما يكره لكن هي لبعتك جت ضيالك جرو so you must know political when planning مكاجت new manufacturing facility in developing country وضع عصوبة قادرة تاع management frequently converted by in integrated وحياة اللي كدعك أوكي أنت سنحن نقولن chapter key يعني نقولن سوق بجبين جبتك ممكن إن شاء الله هتروح كده بيه حنسينا ده الكل هاي